Halkani waa shabakada warbaahinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Tamasgen Turune ayaa daahfuray faa'iida virus. Mudane Aadan Faarax oo xusay dib u habeyntii ballaarneed ee la hirgeliyey sanadihii la soo dhaafay. La taliyaha ugu sarreeya ee madaxweyne Trump Masad Paulus ayaa beeneeyey wararka sheegaya in Mareykanku uu la gorgortamayo Eritrea. Ruushka ayaa weerar ku qaaday Ukraine isagoo adeegsanaya gantaalo riddo dheer iyo diyaarado oo aan duuliye lahayn. Wararkaasi oo faahfaahsan ayaa nagala socon doontaan barteena Facebooka iyo YouTube-ka. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Tamasgen Turune ayaa xusay in hergelinta faa'iida virus ay bilow u tahay marxalad cusub oo lagu dardargelinayo madax bannaanida dijitaalka iyo kobaca dhaqaale ee dalka. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Tamasgen Turune ayaa fariin uu ku baahiyey bartiisa bulshada kuna xusay in uu si rasmi ah loo daahfuray faa'iida virus oo ku tilmaamay hannaan sare u qaadaya isbeddelka dijitaalka ah ee dalka una gudbinaya marxalad cusub. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Tamasgen Turune ayaa xusay in barnaamijka aqoonsiga dijitaalka qaranka ah uu diiwaangeliyey ku dhowaad 50 milyan oo muwaadiniin ah, isla markaana bixiyey in ka badan 160 milyan oo adeegyo xaqiijin ah, taasoo ku tilmaamay lafdhabarta dhaqaalaha dijitaalka ah ee dalka in ay tahay. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Tamasgen Turune wuxuu intaasi ku daray in faa'iida virus uu furayo marxalad cusub oo ku saabsan madax bannaanida dijitaalka ah iyo kobaca dhaqaalaha ee Itoobiya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Tamasgen Turune ayaa sheegay in guushii aqoonsiga dijitaalka ah ay u gudubtay marxalad cusub, iyadoo faa'iida virus u noqday hay'ad horumarineed oo madax bannaan oo hoos tagaya Ethiopia Investment Holding. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenku waxa kale oo uu xusay in go'aanka lagu xoojinayo aqoonsiga dijitaalka ah uu caddeyn u yahay kaabayaal qaran oo istiraatiiji ah, muhiimna u ah tartanka iyo horumarka waara ee dalka, sida waddooyinka, korontada iyo isgaarsiinta. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenku waxa kale intaasi ku daray in qorshaha Digital Ethiopia 2030 uu dalka ka caawin doono in uu khibrad iyo awood la wadaago gobolka iyo qaaradda Afrika. Sidoo kale wuxuu uu xusay in guusha isbeddelka dijitaalka ah lagu cabiri doono marka shacabka ay si dhab ah uga faa'iidaystaan tiknoolajiyada oo noloshooduna isbeddesho. Ugu dambeyn, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in dowladda ay sii wadi doonto jihada horumarinta dijitaalka ah iyadoo xoogga saari doonto tayada adeegyada tiknoolajiyada, sugidda amniga xogta iyo kor u qaadidda fahamka dijitaalka ah ee shacabka. Madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Barwaaqo ahna madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Mudane Aadan Faarax ayaa xusay in dib u habeyn ballaadhan oo lagu hirgeliyey dalka sanadihii la soo dhaafay ee keentay natiijooyin la taaban karo. Madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Barwaaqo ahna madaxa xafiiska dhexe ee xisbiga Barwaaqo Mudane Aadan Faarax ayaa hadalkan ka jeediyey madal lagu qiimeynayay fulinta qorshaha miisaaniyadda sanadkan ee 2018 tiris taariikheedkan Itoobiya, isla markaana lagu soo bandhigayay qorshaha sanad miisaaniyeedka 2019, taasi oo uu qabtay xafiiska dhexe ee xisbiga Barwaaqo. Mudane Aadan Faarax ayaa sidoo kale xusay in dib u habeyn ballaadhan lagu sameeyey dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo diblomaasiyadda ay horseeday guulo muuqda. Waxa uu intaasi ku daray in mustaqbalka laga faa'iidaysan doono fursadda uu abuurayo wada tashiga qaran si dib u habeynta loogu gudbiyo
isbeddel siyaasadeed oo dhammaystiran. Mudane Aadan Faarax waxaa kale oo uu xusay in loo baahan yahay in lasii xoojiyo dadaallada lagula dagaalamayo xagjirnimada, kor loogu qaadayo wadajirka bulshada, isla markaana lasii ambaqaado howlaha lagu dhisayo hay-ado qaran oo awood leh. Madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Barwaaqo ahna madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Barwaaqo Mudane Aadan Faarax ayaa sidoo kale sheegay in dowladda wadajirka ee Madamar ee uu hogaamiyo xisbiga Barwaaqo ay ku guuleystay hirgelinta howlo wax ku ool ah oo lagu dhisayo dowlad iyo dal adeeg. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in la dhaqaajiyay hoggaanka iyo xubnaha xisbiga si loo fuliyo mashaariic horumarineed oo shacabka si toos ah uga faa'iidaysanayaan. Ugu dambeyn, wuxuu ku booriyey hoggaanka iyo xubnaha xisbiga heer kasta in ay si hufan oo tayo leh u gutaan waajibaadkooda, isagoo u mahadceliyey maamulka iyo shaqaalaha xafiiska dhexe ee xisbiga Barwaaqo kaalintii ay ka qaateen guulaha la diiwaangeliyey sanad miisaaniyadeedkan. La taliyaha ugu sarreeya ee madaxweyne Trump, Masad Boulos, ayaa beeneeyey wararka sheegaya in Mareykanku uu la gorgortamayo Eritrea amaba uu raadinayo heshiis qarsoodi ah oo ku saabsan dal Geeska Afrika. Masad, oo ah la taliyaha ugu sarreeya ee madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha Carabta iyo Afrika, ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo ku sheegay in Mareykanku uusan la gorgortamaynin Eritrea, dal ka mid ah gobolka. La taliyaha ayaa sheegay in Mareykanku uu gabi ahaanba beeneeyey inuu soo jeediyo inuu la gorgortamo Eritrea amaba uu raadinayo heshiis qarsoodi ah oo uu la galo waddan kale oo gobolka. Masad Boulos ma uusan cayimin cidda Mareykanka uu kala hadlayo Eritrea ama cidda uu yahay dalka gobolka. Wuxuuna intaasi ku daray in aysan jirin heshiis noocaasi ah oo aan laga hadlin ujeeddada xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka waa in nabad waarta lagu soo dabaalo Geeska Afrika. Wuxuu sidoo kale ku eedeeyey maamulka hadallo been abuur ah oo maran habaabin ah, eedeymo sumcad dil ah iyo eedeymo aan sal lahayn oo ku saabsan heshiisyada ama dhacdooyin kale oo wiiqayo rajada nabadda waarta, iyagoo qalluucinaya xiriirka diblomaasiyadeed ee niyad wanaag leh. Boulos waxaa kale oo uu sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto inay xiriir diblomaasiyadeed ee la yeelato Masar, Eritrea iyo Itoobiya si ay nabad uga gaarto Geeska Afrika, isagoo intaa ku daray in diiradda ugu weyn ee waddankiisu ay ahayd nabad waarta oo ka dhacda gobolka. Waa markii labaad muddo 2 toddobaad gudahooda ah la taliye sare oo madaxweyne Donald Trump ah uu beeneen noocaasi ah ku soo bandhigo baraha bulshada. Ruushka ayaa weerar ku qaaday Ukraine isagoo adeegsanayo gantaalo riddo dheer iyo diyaarado aan duuliye lahayn, waxaana weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan 21 ruux. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in gantaalada difaaca cirka ee lagu joojiyo gantaalada riddo dheer ay badbaadin kari lahaayeen nafaf. Magaalada Kyiv iyo deegaanada ku hareeraysan ayaa la kulmay weeraradii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan, iyadoo lasoo sheegay in 17 qof ay halkaasi ku dhinteen. Weeraro kale oo ka dhacay Kharkiv iyo Donetsk ayaa sidoo kale sababay dhimashada 1 qof. Ukraine oo si joogto ah uga codsanaysa xulafadeeda gantaalada difaaca cirka ee Patriot ee uu sameeyo Mareykanku si ay isaga difaacdo gantaalada riddo dheer ee Ruushka. Ma aysan shaacin in ay soo riday wax gantaalo ah
intii uu socday weerarkaasi. Zelensky ayaa sheegay in dib u dhacyada ku yimaada helitaanka nidaamyada difaaca gantaallada riddo dheer ee ay bixiyaan dalalka xulafada ah ay sababaan khasaare naf iyo burbur aad u ba'an. Madaxweynaha ayaa markii dambe sheegay in sahyada gantaallada difaaca ee ay ka hesho xulafadeeda ay si weyn hoos ugu dhacday sanadkan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay beegsadeen xarumo saadka ah iyo bakhaarro lagu kaydiyo agabka militari oo ku yaala Kyiv iyo deegaanada ku dhow. Wasaaraddu waxay sheegtay in xarumahaasi lagu kaydin jiray laguna diyaariyey hub kala duwan iyo sahayyo militari, isla markaana lagu soo saari jiray laguna qaybin jiray diyaaradaha aan duuliye lahayn.